sida caadadeenoo ah janalkan marwalba waxaa idinku soo gudbiyaa applicationada ugu fiican ee aad ka helaysid Play Store-ka kuwaasoo mataqaanaa u baahan taleefankaada inaad ku isticmaashid laakiin maanta mowduuceen uu ku duwan yahay waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo 5 barnaamij oo khatar ku ah taleefankaaga isla marhaantaana haddii uu hadda kugu jiro inaad daleedgarasid ay qasab kugu tahay subscribe sar channelka sidoo kale gambaleelka furo si video walba kugu soo dhaco هاي مقعي هو عبيد داير كسو دوادا جانالكينا سد جروس هادي اد كعصبتا فضل waxaa ka codsanayna subscribe ku sameeyso soo keenaa like saarto muuqaalka sa hore idinku sheeg waxa idinku soo gudbi doonaa barnaamijyo badan oo qatar ah ayaa jira sida aad ka helist Play Store-ka yani browserada kala duwan iyo source kala duwan waxa jira marka barnaamijyo qatar ku ah taleefankaaga isla marhaantan u baahan in hadda ka saarto taleefankaaga hadii kugu jiraan soo kale hadii aad ku aragto mataqaanaa yani meelaha kala duwan ee Play Store-ka isla marhaantan inaad soo degsan oo taleefankaada aad ka ilaaliso maxaa yeelay qatar badan ay u keeni karaan sida in daatadaada laga xado insha Allah muuqaalkan ay mid oga hadli doonaa mid walbana dul istaagi doonaa insha Allah haddaba ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta haddaba soo laabasho waan asxaabteena qaaliga haddaba barnaamijka koowaad ee kamid ah 5 barnaamij ee ugu khatarsan kuwaas oo aad u baahan tahay inaad ka ilaaliso taleefankaaga waxa loo yaqaanaa UC browser haddaba browserkan waa mid kamid ah browserada ugu caansan ee laga helo Play Store-ka samahaantaana degsaday balaayin qof haddaba barnaamijkan caanimadiisa waxaa ku qarsoon waxyaabo badan oo khatar ku ah taleefankaada tusaale ahaan barnaamijkani wuxuu xogtaada u gudbinayaa dhammaanteeda shirkad ay leedahay Chinese-ka oo wax encryption ayadoo lahayn ayaa loo gudbi doonaa barnaamijka waxa laga leeyahay Chinese-ka oo datadaada user-kaaga iyo password-kaaga wax walba halkaas ayaa la geeyay doonaa ayadoo waxba la qarin mataqaanaa ama code lagu qarin sida yani Facebook oo kale datadaada way qarisaa ayada oo yani password-kaaga si automatic ah shaqaalaha u arki karaan waa laga qarinayaa oo waxa lagu bedelayaa koodad kale laakiin website-kan wuxuu sameynayaa password-kaada si automatic ah wuxuu u gudbinayaa shirkadda Chinese-ka laga leeyahay halkaasna waxa ka dhalan karta in laga xado dhammaan xogtaada iyo user-daada haddaba iska ilaali barnaamijkan oo ka saar taleefankaaga haddaba barnaamijkeena labaad waxa loo yaqaanaa Dolphin browser haddaba browser-kan wuxuu la mid yahay barnaamijkii hadda UC browser haddaba barnaamijkani muxuu qatar ugu noqonayaa taleefankaada haddaba barnaamijkan sida barnaamijka hore ayuu datadaada ugu dirayaa yani shirkad kamid ah shirkadaha Chinese-ka oo barnaamijkan asagana waxa laga leeyahay Chinese-ka haddaba barnaamijkani wuxuu sameynayaa dhammaan xogtaada wax walba oo search gareyso oo mataqaanaa daraadisid wax walba oo aad qortid wax walba oo aad daawatid dhammaantooda wuxuu u gudbinayaa shirkadaas Chinese-ka laga leeyahay soo kale wuxuu barnaamijkan la sii dheer yahay dhammaan xogtaasi oo kaliya u gudbinayaa website-ka ama shirkadda Chinese-ka soo kale wuxuu la wadaagayaa shirkadaha kale ee loo yaqaan Alibaba iyo Amazon oo xogtaada iyo mataqaanaa location-kaaga dhammaan ay u gudbinayaa meel walba oo joogtid shirkadaas way kula socon doonaan haddaba barnaamij aad iyo aad u khatar ah ficil walba oo sameynaysa in la ogaado waa shay aad iyo aad uga soo horjeeda xagga amnigaaga haddaba barnaamijkan iska ilaali asigana barnaamijka saddexaad ee listiga maanta noogu jiro waxa loo yaqaanaa ama barnaamijka rabo inaan isu gudbiyo waxa loo yaqaanaa Clean Master haddaba barnaamijkan wuxuu qabanayaa yani ama uu leeyahay shaqada qabanaya waxay tahay waxaan mataqaanaa aan yani chunky files-ka wax loo yaqaan ama temporary files-ka ama unnecessary files-ka oo aan la jeedo faylashaan waxba tareenin oo mobilkaaga mataqaanaa culayska dhigayo ayuu ka dalad gareynayaa waa sidoo asiga sheegay laakiin waxaad ogaataa in taleefanada ugu dambeeyay ee smart yihiin kuwa waxyaabaha dhan kugu qabanaya ay yihiin maxaa yeelay mid walba ama taleefanada cusub waxay wataan barnaamij junkiska ama unnecessary files-ka ka dalad gareynaya barnaamijyadaas waxaa ka helaysaa taleefankaaga qaybta settings-ka daagashid halkaas waxaa ka raadinaysaa meel ku qoran tahay storage taleefanada qaar ma lahan storage halkaas laakiin waxaa ka heli kartaa haddii halkaas aad ku weysid taleefanka aad galaysaa waxaa raadinaysaa meel ku qoran tahay application mid kamid ah smart storage haddaba barnaamijkaas ayaa tagaysaa kadib waxaad raadinaysaa halka ku qoran tahay chunky files ama mataqaanaa clear chunky files meel ah
aad ka raadinaysaa kadibna waad delete garaynaysaa wuu leeyahay marka uma baahna taleefanada hadda aan isticmaalno waxyaabahaas in loo qabto oo aad application kale aan u isticmaalno maxaa yeelay taleefanadeena ayaa already la horumariyay oo waxyaabahaas dhan asiga qabsan karo marka barnaamijyadan ayaaba culays ku keeni kara taleefankaaga oo waxyaabo kale kugu soo dari kara haddaba barnaamijkan Climaster iska ilaali haddaba barnaamijkeena afraad ee ka mid ah barnaamijyada romaanta inaan isu gudbiyo kuwaas oo khatar ku ah taleefankaada waxaa loo yaqaanaa do recorder haddaba barnaamijkani wuxuu ku leeyahay waxaan ku qabanayaa waxaan yacni badinayaa isticmaalka baterigaada ama markaa bateriga daweynaysa oo kale ayaan speed ka dhigayaa oo xawaare ayaan ku furayaa oo mataqaanaa taleefanka hadduu awal kugu daysmi jira 1 saac waxaan hadda ka dhigayaa 30 daqiiqo ayaan kugu buuxinayaa laakiin aamin barnaamijkani waa pen maxaa yeelay haddii aadan isticmaalaynin koronto xoog leh ama barnaamijku sahlaya qalabku sahlaya in taleefankaada si awood leh dabka u gudbiyo si kale yacni uma badi kartid dabka taleefankaada galaya haddaba barnaamijkan waa barnaamij aan waxba ku qabanayna isla xaantaana waqtigaaga luminaya sidoo kale barnaamijkan wuxuu dilayaa ama uu xirayaa barnaamijyada ku furan haddaba barnaamijkan iska ilaali hana barnaamijkeena ugu dambeeya ahna barnaamijka shanaad ee khatar ku ah taleefankeeda waxaa loo yaqaanaa ama yacni loo yaqaana dhammaantood waa antiviruska dhammaan antiviruska oo ku jira Play Store kuwaasoo kule waxaan virus ka bixinaynaa taleefankaaga inaad iska ilaalisid maxaa yeelay mobiladeena haddii aad mar walba up to date aad ka dhigtid versionka mobilkaaga sidoo kale barnaamijyada Play Store ka kala soo degaysidna mataqaanaa up to date aad ka dhigtid uma baahnid wax antivirus ah barnaamijyadan aad ugu jeedid Play Store ka kuwaasoo kale waxaan virus ka saaraynaa taleefankaada waa beentooda maxaa yeelay taleefankaada wax virus ah ma soo galaya haddii aad up to date ka dhigto oo version walba oo ku cusub barnaamijyada isticmaashid taleefankaada aad mataqaana mar walba update aad ku samaysid sidoo kale barnaamijyada waxay khatar ku leeyihiin waxay tahay waxay kaga baahan yihiin inaad awood u siisid ama permission u siisid yacni dhammaan message-da diraysid storage-kaaga wicitaankaaga iyo wax walba taleefankaada ku saabsan haddaba su'aasha taagana waxay tahay maxaa iska galay xogtaada iyo wicitaankaada iyo message-daada in uu barnaamijkan kaga baahdo asigoo markaa shaqadiisu tahay inuu viruska kaga saaro haddaba halkaas waxaa ka cad in barnaamijyadan xogtaada ay u gudbinayaan shirkadaha loo yaqaano third parties mataqaanaa oo xogtaada ayaa si automatic lagu dhigi doona halkaasna waxaa laga yaabaa in xogtaada lagu xado haddaba iska ilaali any antivirus oo Play Store ka yacni yaal maxaa yeelay taleefankaada ayaa smart ah kana saari kara mataqaanaa in virus taleefankaada uu soo gelin اوكي ضاوي waxaan rajaynayaa muuqaalka aad ka xiiso badnaa aad ka hesheen waa gabagabadii barnaamijkeena ayaan soo gargaarnay waad ku maasantid daawateen muuqaalkan insha Allah waxaan rajaynayaa wax badan ka faa'iideen fadlan haddii aad ku cusubtahay channelka subscribe ku samayso kale like saar muuqaalka si aad noogu dhiirigeliso waa walaalkiin Cabeed Daahir oo leh muuqaal kale oo xiiso badan bye bye